Jilliinka ama acting-ka waa xirfad. Jilayaasha qaar ayaa ka duwan dhigooda kale. Kuwa hodan qaarna waxay u halgamaan sidii ay nolol maalmoodkooda ugu heli lahaayeen jilliinka. Nasiib wanaag kuwa qaar waxay leeyihiin rajooyin dhowr milyan ah iyo qandaraasyo $100,000 ah iyo boqornimo laga soo qaaday filimadii ay sameeyeen. Weligaa ma raadin jirtay jilaaga ugu hodansan jilayaasha dunida? Haddaba waa kuwan 10 ka mid ah jilayaasha ugu qanisan adduunka sanadka 2020. Daawasho wacan. Nambarka 10 Sylvester Stallone. Sylvester Stallone waa jilaa Mareykan ah, sidoo kale waa director, qoraa iyo soo saare. Stallone waxa uu jilliinkiisii ugu horreeyay uu bilaabay sanadii 1969. Stallone waxaa lagu xasuustaa taxanaha Rocky iyo Rambo iyo filimaan kale. 73 jirkan ayaa helay abaalmarino iyo magacaabis kala duwan kadib dadaal dheer oo uu soo galay. abaalmarinada shakhsiyadeed uu helay waxaa ka mid ah in loo magacaabay 3 jeer Oscar iyo abaalmarinta Golden Globe Award iyo abaalmarinta César Award iyo kuwo kale oo badan. Maanta Stallone waxa uu haystaa adduun dhan $400 milyan. Nambarka 9 Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger waa jilaa Austro-American ah, filim sameeye, ganacsade, qoraa, jirdhise iyo siyaasi. Waxa uu noqday garsooraha 38aad ee gobolka California laga soo bilaabo 2003 ilaa 2011 ilaa laga soo gaaray 2020. waxa uu ahaa gudoomiyihii ugu dambeeyay ee gobolka California. Arnold waa astaan caalami ah markay timaado jilliin. Waxaa lagu xasuustaa filimo badan oo magac ku leh dunida sida Commando oo soo baxay sanadii 1985 iyo True Lie oo soo baxay sanadii 1994 iyo kuwo kale oo badan. Waxa uu haystaa maanta adduun dhan $400 milyan. Nambarka 8 Johnny Depp. Johnny Christopher Depp waa jilaa Mareykan ah, soo saare iyo muusigiste. Waxaa loo magacaabay 10 abaalmarino oo abaalmarinta Golden Globe Award oo ka mid ah abaalmarinada ugu waaweyn oo ku guuleysto jilaa. Johnny Depp waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah xidigaha ugu waaweyn ee filimada sameeya. Waxa uu haystaa filim ka soo xareeyay adduunka $8 bilyan. Filimkiisa guulaha ugu waaweyn gaaray waa taxanaha lagu magacaabo The Pirates of Caribbean. Johnny Depp waxa uu jilay filimo badan sida Sleepy Hollow, Black Mass, The Tourist, Chocolate Factory iyo kuwo kale oo badan, kuwaas oo dhammaantood ganacsi ahaan guuleystay. Maanta waxa uu haystaa adduun lacageed dhan $450 milyan. Nambarka 7 Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan waa jilaal reer Hindiya soo saare, sidoo kale waxa uu ka soo muuqdaa telefishinada iyo sidoo kale waa siyaasi hore. Waxa uu soo shacbaxay noqdayna jilaa horaantii sanadii 1970-yadii. Waxa uu jilay filimo badan sida Zanjeer, Diwaar iyo Sholay. Waxaa loogu yeeraa doorkiisa shaashadda ee Bollywoodka ninkii da'da yaraa ee xanaaqsanaa. Amitabh Bachchan waa mid ka mid ah jilayaasha ugu caansan filimada India oo sidoo kale loogu yeero Bollywoodka. Waa aktarka 7aad ee dunida ugu taajirsan. Waxa uu jilliinkiisa ka dhigay mid ay aad u jecel yihiin taageerayaashiisa maanta. Waxa uuna haystaa qiyaastii adduun lacageed dhan $450 milyan. Nambarka 6 Jack Nicholson. John Joseph Nicholson waa jilaa Mareykan ah, filim sameeye, mustaqbalkiisana uu soo jiray muddo ka badan 60 sano. Waxaa lagu yaqaanaa inuu ciyaaro doorar ballaaran oo kala duwan ay ka mid yihiin majaajilada, jacaylka iyo weliba doorka xumaanta. qaar ka mid ah aflaamta filimadiisa caanka waxaa ka mid ah Flight to Fairy oo soo baxay 1964, The Brated oo soo baxay 2006, Bucket List oo soo baxay 2007 iyo How Do You Know oo soo baxay 2010 iyo kuwo kale oo badan. Waxa uu haystaa adduun lacageed dhan $480 milyan. Nambarka 5 George Clooney. George Clooney waa jilaa Mareykan ah, agaasime, soo saare iyo filim sameeye. Waxa uu helay 3 ka mid ah abaalmarinta Golden Globe Award iyo 2 ka mid ah abaalmarinta Academic Award. Qaar ka mid ah waxa uu ku qaatay filimkiisii Syriana, kuwa kalena waxa uu ku qaatay shaqadii uu ka geystay filimkii Argo. Sanadii 2018 waxa uu ku guuleystay abaalmarinta Lifetime Achievement Award. George Clooney waa jilaaga 5aad ee ugu taajirsan adduunka, isagoo leh hanti dhan $500 milyan. Filimaantiisa ugu caansan waxaa ka mid ah Ocean 11, Three King, Syriana iyo kuwo kale, kuwaas oo dhammaantood ah filimo aad u sarreeya oo box office-ka rikooro cusub ka sameeyay.
Nambarka afaraad, Tom Cruise. Tom Cruise waa jilaa Mareykan ah, sidoo kale waa filim sameeye. Waxa uu helay dhowr abaalmarineed oo shakhsiyadeed oo ay ku jiraan 3 ka mid ah abaalmarinta Golden Globe Award oo la guddoonsiiyey iyo 3 abaalmarin oo ah Academic Award. Cruise waxa uu ku faanaa inuu haysto 3 abaalmarin oo ah Golden Globe Award iyo 3 kale oo ah Oscar. Waxa uu haystaa adduun lacageed dhan $550 milyan. Nambarka 3aad, Tyler Perry. Tyler Perry waa jilaa Mareykan ah, qoraa, soo saare, majaajiliste iyo agaasime. Sanadii 2011 jariiradda Forbes waxay u xushay inuu yahay ninka ugu mushaharka badan ragga sameeya madadaalada, isagoo helay $130 milyan intii u dhaxaysay May 2010 ilaa May 2011. Filimadiisa ugu macaashka badan waxaa ka mid ah Diary of Mad Mad, Daddy Little Girl iyo Why Did I Get Married. Kuwaani waa dhowr ka mid ah filimadiisii kuwaasi oo ah kuwa ugu sarreeya ee lacagaha ugu badan soo xareeyay. Tyler sidoo kale waa qoraa, waxa uu caan ku yahay doorkiisa hogaamineed uu ciyaaro mar walba. Hantidiisuna waxay dhan tahay $750 milyan. Nambarka 2aad, Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan oo sidoo kale loo yaqaano SRK waa jilaa reer Hindi ah, soo saare, shakhsi ka soo muuqda telefishinada. Warbaahintu waxay ugu yeeraan magacyo badan sida Badshah of Bollywood, King of Bollywood iyo King Khan. Waxa uu ka soo muuqday in ka badan 80 filin oo Bollywood ah. Waxa uuna kasbaday abaalmarino badan oo ay ku jiraan 14 abaalmarin oo ah Filmfare Award. Shah Rukh Khan waa jilaaga labaad ee ugu taajirsan adduunka, isagoo leh hanti fara badan oo ka badan $3 bilyan. Khan waa jilaa Hindiya oo ku guulaystay deegaankiisa hooyo New Delhi. Waxa uuna haystaa adduun lacageed dhan $750 milyan. Nambarka 1aad ee ugu dambeeya, Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld waa majaajiliste Mareykan ah, waa jilaa, qoraa, soo saare iyo agaasime. Waxaa lagu yaqaanaa inuu jilo qayb ka mid ah sheekooyinka qofeed. Jilaaga ugu taajirsan adduunka maanta waa Jerry Seinfeld. Waxa uu leeyahay hanti qaali oo cajiib ah oo dhan $950 milyan, taasoo keliya 50 milyan ka fog inuu noqdo bilyaneer. Jerry waxa uu caan ka noqday ka soo muuqashada telefishinada. Filimadiisa ugu caansanna waxaa ka mid ah taxanaha Seinfeld, 30 Rock. Seasonkii ugu dambeeyay uu ka sameeyay taxanaha Seinfeld, waxaa la ogaaday inuu episode walba ka helay lacag kor u dhaafaysa $1 milyan.